waxaa la ii soo amray inaan dagaal ka bilaawno jiidaha dhulka cadowga uu soo galay noo dagaal waa inaan ku dhaqaaqno qawaadhiista wax kale oon gelaynaa ma jirto ballan ma noo tahay ood ugu soo diyaar garowdeen awaamirtii aan kala imid ma oon madaxdiinna iyo hoggaamintiinna u sheegay aniguna aan kala imid dawladda federaalka oo ii soo fartay in dhulkii qawaadhiista lagala diriri jiray oo ku caanahay geesinimada iyo xoraynta la ii soo diray intaas yar hadda aan markaan u sheegay aad saa u soo diyaar garowdeen waa idinkaga mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa intii soo abaabushay saraakiisha xildhibaanada culimmada inta waxgaradahoo dhan mas-uuliyiinta guddoomiyaasha wax walba oo hawl ka qaatay intaas soo ururintooda ayagana waa u hambalyaynayaa waxaan rabaa hadal badan ma rabno anigu waxaan ka tirsanahay dawladda federaalka saraakiil badanaa ila socotay waxaa la ii soo amray inaan dagaal ka bilaawno jiidaha dhulka cadowga uu soo galay dalka Soomaaliya maanta dagaal ka wada socda ha u badnaadeen koonfurta Soomaaliya waxa weeye mas'uuliyiintii oo dhan quraacda iyo geedaha hoostooda harsanaysa waxay ka harsanaysaana nimanka in la dabar gooyo adinkoo meeshii ku caanaheed ka dabar gooyntay shabaabka bilowday inaan annaguna fadhinaa ma ahan waxaan idinka codsanayaa sidaad u soo diyaar garowday inaad u dagaal gataan waa idinku hogaaminaynaa waan dagaalamaynaa waan iska fogeynaynaa amar baan u qabnaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisii iyo in alla inta wasiir iyo xildhibaan ahayd jiidday ku wada jiraan annaguna jiidda waa inaan galnaa waxaan aad iyo aad idinkugu hambalyaynayaa sidaa wanaagsan ood uga soo qayb gasheen qawaariis la dirirka aad caanka ku ahaydeen una diyaar garowdeen waa idinkaga hambalyaynaya waa noo dagaal waa qawaariisoon la dirirno waa annagoo u dhaqaaqno aanan magaalada ku jirin ka baxno la dirirno garab aan u haysanaa dawladda ayadoonkood dawlad idinku garab siinayn ayaad hore u diriri jirteen maantoo dhaawiciina la qaadayo rasaastiina loo hayo raashinkii laydin hayo meel walba aan laydin geynayo intaba waxa weeye maanta aan fursad u haysanaa aan israacinno amar guud baan qabaa amarkii guud aan idin farayna adinkuna waa qaadateen waa noo dagaal waa inaan ku dhaqaaqno qawaadhiista wax kale oon gelaynaa ma jirto ballan ma noo tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu